kulankan ballaaran ee maanta ka dhacay howlka shirarka degmadaasi Ceelaf Weyn ayaa ahaa xoojinta nabadgelyada deegaanadaasi Ceelaf Weyn waxaana kulankani maanta ka soo qayb galay taliyaha qaybta booliska ee gobolkaasi Sanaaga maamulka degmadaasi Ceelaf Weyn odayaasha iyo waxgaradka ka soo kala jeeda laba beelood oo deegaankaasi degmadaasi Ceelaf Weyn waxaana kulankani ujeedadiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi waliba dadka reer guraaga ahi aanay isla markaasna u kala shakiin nabadgelyadana meel looga soo wada jeesto cid kasta oo xumaynaysa isla markaasina gacan bir ah lagu dhigo ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka labadani beelood maanta kulankan ay soo qaban qaabiyay isla markaasina go'aamada maanta halkaasi ku gaaray hawsha yara simbiriraxada ee dhidin anagoo ah labadii caaqil ee labada daraf waxaan ku dhamaysanay inaanu ku dhamayno nabadgelyo iyo wanaag waa isku afgaranay inamada yar aan hawshooda sidaas ku dhamaynay siida iyo wada deegaanka iyo intaan aanu nabad kaga shaqeyno go'aanka iyaga aanu qaadanay waa sida oo nagula jooga taliye qaybta booliska Saleebaan Ducaale iyo ogaasha kale iyo waayeelka degmada iyo maamulka degmada maanta isugu nimishir taliye qaybta saraakiishii kale maamulkii degmada Ceelaf Weyn arinta yarna waxaan isugu nimi iyo hawl yar oo inama dhidinka isku yara dhaca hawsha waa dhamaysanay haddaanu maamulka nahay haddaanu taliye qaybeedka nahay waxaanu ku heshiinay annagu awalba beelmo uqaasheedu inaanu nabadgelyada halka nagaga haboon aanu qaybteeda ka qaadano qaybaha kalena sida walba ciidamada iyo waayeel kuga shaqeynayeen ayana sidoodu u wadaan inamadii yaraa halkaana mar haddii aanu hawshoodii dhamaysanay oo aan meesha wax dhibaato ay ka dhicinin isaseeg yaraana aanu dhamayno waayeelkayga haddaanu nahay waxaanu ka caacsanay taliyaha iyo maamulka iyo saraakiisha kaleba inay iyana noo soo daayeen hawshaasina halkaa ku dhammaato wixii nabadgelyo dambe ee nagaga beegan nabadgelyo nagaga beegana aanu hadda ilaahay yiraahdo aanu sii noolaano aanu ka howlgalno ugu dambeynna waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmadaasi Ceelaf Weyn Maxamed Jaamac Liibaan iyo waliba taliyaha qaybta booliska ee gobolkaasi Sanaaga ayaa iyaguna ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu isla markaasina cid kasta oo ka hortimaada ay gacan bir ku qaban doonaan waxaan salaamayaa maamulka degmada Ceelaf Weyn uqaasha waxgaradka iyo ciidamada iyo saraakiisha halkan fadhiya gaar ahaan waxaan sii salaamayaa caaqil Axmed Diiriye عاقل آدم شارع فارح يعقاش كله ولسلا لما أنتم واحد كم هاد علينا سدا وحنا قبضتين أما حقا قبضتين عقوليان أذن نبدينا أرنتي كده علي كلا شك قاعد مالك حوالة لاقسمين كله يقالوا لدينك وحنا لا أنت على لدينك حوالة قتل هالك كله لما دكته يوحقرت كذا waxaan halkan u marinay arintii waa laga heshiiyay heshiiska ay ku kala qaata nabadgelyada ku ilaaliya dhulka nabad ayay ku deeqdaa nabad ay xoolo ku daaqi karaan biyaha iyo dhirta kale wax laga gudbi karaan nabad oo ku bedelataan dadku inay isdhex maraan waa muhiim xooluhu inay isku meel ku soo foofaan waa muhiim waxaasoo lamana wax u taala waxgaradka iyo uqaasha iyo dadka odayaasha ummadda u wareegay in ay nabadda daadajiyaan oo ka shaqeeyaan sidii dadkani وعيالشوا وضع عبد لها أنا حولها هي بعضهم كلا عشلها يصير سلع مر لها ضد يدورها. runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa waayeelahaan iyo mas'uuliyiin ahaanba xilka ay ka saarteen iyo sida wax u qaadateen iyo jawaabta cad ka bixiseen iyo hawlgalka runtii aad sameyseen markii ay wax dhaceen iyo markii wax bilowdeen ba sida wax u qabateen waayeelka iyo uqaasha iyo hadda labada caaqil hadana uga mahad celinaynaa sidii cidii markaa dhalinyarada yaryarayda samaysay ma badnaynay tirada yaryarayda saddexda ahayd markaa la garan waayena idinku inta gacanta ugu qabateen ugu keenteen xukuumadana waa idinka mahad celinaya waxaan runtii saad naga codsateena tixgelinteeda way leedahay insha Allah aad iyo aad baan idinka mahad celinaya Axmed Maxamed Cilmi Bulsho TV Ceelaf Weyn